wafdi ballaaran oo isugu jira maamulka degmada Garadag xildhibaano guddida abaaraha ee degmada Garadag odayaal xubnaha ugu sarsareeya ururka Geyda ayaa kormeer ballaaran u kurgay xaaladda abaaraha iyo biyaanta ka jirta deegaanada hoos yimaada degmada Garadag waxay ku soo kormeereen dhulka kala cadaad shiisha turciyaal midfla fadhiyar docasha faraguul duntimaha raad barbarcad qalloocada higla yaryar goof goose weynay dhul kala badan socdaalkayga ayaa waxa qayb ka ahaa kamarada TV-ga Universal sagoona qaatay waqti gaadhay 12 saac safarkan ayaa lagu magac daray safarka kulmiye waxaana halkaasi ururka dhalinyarada Geyda gaarsiiyay 6 beelood oo biyo waxaana ka mahad celiyay dadka raadka ay abaartu ku saameeyeen deegaanadaasi waxaana ugu halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta ururka Geyda waxaan doclaha oo maanta ka anagoo ah ururka Geyda oo biyo dhaamis ka wada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Garadag hadda qabiil iyo reertoona dadka deegaanka oo dhan ay siday wada cabi jireen ay wada cabaan baan u dhiganaa booyadaha waxa ku leeyahay degmada Garadag si aan u soo eegno magaranaysa abaarta baana ka jirta dhulka iyadoo maayirka degmada Garadag la socon doona farxadan ciise aan aad iyo ugu mahad celino waayo sababta wuxuu noo sheegaa dhulka magaranaysa abaarta xun ka jirto waxa weeye waa docosha waxay Garadag u jirtaa ilaa 50 kilomitir waxa la keenay 70 kilomitir waxa la keenay 5 booyadood biyo waa meelaha raadku aadka loogu liitaa shantan booyad inta loo kala abtirmay qof kasto oo baahan oo biyo wala siinaya dadkii la soo baxay biyahan ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay xasanaadka halka ka soo saaray wax ila khayr qabo ilaahay ugu bedelo dhinacooda waxa iyaguna ka hadlay dadka xoolo dhaqatada ah ee saaka biyahan soo gaareen waxayna uga mahad celiyeen cid kasta oo soo gaarsiisay biyahani wada iyo ururka dhalinyarada iyo maxaan ku dhahday maamulka degmada iyo odayaashii wixii arrintaas soo xil saaray oo dhan waan u mahad celinayna alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle laakiin ma badan beelay halkan waxay noogu keeneen saaka aan ducada ka guddoonay 5 booyadood annaguna waxaanu ballan qaad celinaynaa ururka Geyda oo iyo qolada jahliyada ah ee noogu deeqday biyaha kan maanta aanu ka waraabinayno xoolaha dhaqaynaa dhalinyarada u soo gurmatay dadkan abaaru haystaan iyo biyalaantu ayaanu aad iyo aad horta marka hore ugu maqnay ugu yimi 60 kilomitir ayay noo soo gaarsiisay biyahani gabagabadii waxa iyaguna hadalka qaatay duqa degmada Garadag Faarax Aadan Ciise xildhibaan Cali Jaamac Cabdi xildhibaan Sahar Dhako isla markaana afayeenka guddida abaaraha runtii markaan sawir badan baan soo qaadnay dhul badan baan saaka soo maray kormeer baanu maraynaa anagu ka maamul ahaan baanu samayn doonaa hadii aan u dhaxaysa maxay ahaydeen waa ban abaara oo aan magaranaysa wax biyo qaban buu badan yahay waa la isku soo hayaamayo in lagu qaboojiyo waxaan u baaqaynaa in dadka biyo u soo mariyaan ururada dhalinyarada iyo cidii kale ee hadba intii aan ku guda jirnay safarkaygana waxaan la kulannay inaan yar oo da'diisu tahay 14 jir oo miina kula qaraxday meel u dhow tuulada Gowsaweyne ka tirsan degmada Garadag Axmed Jaamac Aadan TV-ga Universal Garadag